Golan Heights ama buuraleyda Golan Heights wuxuu maanta leed ku hayaa mid ka mid ah buuraleyda muranka iyo khilaafka badani ka taagan yahay. Golan Heights waa dhul buuraley ah oo dhaca bariga dhexe una dhexeeya Lubnaan, Jordan, Syria iyo Israel. Koonfurta Syria iyo weliba caasimadda Dimashq ayaa waxay u jirtaa buurahan ilaa 60 kiiloomitir oo keliya, waxaana dusha sare laga arki karaa dhaqdhaqaaqa ciidamada Syria ee ku sugan caasimadda iyadoo ay fududahay in laga duqeeyo. Israel ayaa ka qabsatay Golan Heights dalka Syria marxaladihii ugu dambeeyay ee dagaalkii 6 maalmood ee socday 1967. Inta badan Carabtii Syriyaanka ahayd ee deganeed waxa ay ka carareen intii uu socday dagaalka, balse dowladda Syria ayaa isku dayday sanadkii 1973 inay dib u qabsato Golan Heights, hase yeeshee waa ay ku guuldareysatay inkastoo khasaare culus ay gaarsiisay ciidamada Yuhuudda. Heshiis xabad joojin ah ayaa la dhex dhigay labada dhinac sanadkii 1974, waxaana la geeyay kormeerayaal ka socda Qaramada Midoobay, balse Yuhuudda waxay bilaabeen inay deegaamiso oo ay dejiso dad Yuhuud ah buurahaasi. Warbixin ay sanadkii 1981 soo saartay hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa lagu sheegay in Israel ay fal sharci darro ah ku haysato buuraleyda Golan Heights ee dalka Suuriya. Waraaqa cilmi baaris ay sameysay CIA ayaa waxay muujiyeen xaqiiqooyin taariikheed oo ku saabsan buuraleyda Golan Heights. Warbixinta sirdoonka ayaa sida aadka uga soo horjeedo go'aanka uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka sanadkiina dhaafay, taasoo uu buuraleyda Golan Heights oo ugu aqoonsanaya dhul Israel leedahay. Iyadoo warbixintaas ay soo saartay CIA-da ay tahay midda sida qotada dheer ugu noqonaysa xididadii taariikheed ee buurahaas, iyadoo warbixintaas lagu yiri marnaba buuraleyda Golan Heights ma noqon dhul Israel leedahay. Iyadoo 100,000 oo Suuriyaan ah ama Carab ah xoog looga raray oo laga saaray tan iyo wixii ka dambeeyay markii Israel qabsatay buurahaasi, mana loo ogolo dadkaasi inay dib ugu soo noqdaan deegaankoodii, iyadoo Israel halkaa ka bilowday inay ku beerto dad Yuhuud ah sanadkii 1966. Warbixinta CIA-da ayaa lagu sheegay in buuraleyda Golan Heights tahay dhul Suuriya leedahay oo laga xukumi jiray gobolka Quneydara ee dalka Suuriya tan iyo sanadkii 1967. Xogta tirakoob ee la sameeyay sanadkii 1965 ayaa muujisay in gobolka Quneydara ee dalka Suuriya dadka ku nool ay ahaayeen 142,000 oo isugu jiray Muslimiin Carab ah oo Sunni ah, Carab Masiixiyiin ah, dadka ka soo jeeda qowmiyadda Druusta iyo qoysas Calawiyiin ah, iyo ilaa 13,000 oo Falastiiniyiin qaxooti ah. Iyadoo Israel tan iyo sanadkii 1967 ay baabi'inaysay oo tirtirtay 80 ka mid ah 90 tuulo halkaas ku yaalay, isla markaana burburisay hantidii dadka Suuriyiinta ay halka ku lahaan jireen, si ay wadada ugu jeexdo inay hesho meel ay ka dhisto xaafadaha Yuhuudda la dejinayo iyo meelihii beeraha ka qodan lahaayeen iyo meelihii maamulka laga dhisayay iyo weliba meelihii laga yeegleelayay ciidamada Israel ee buuraha ku dul yaallo. Israel oo buurahan qabsatay sanadkii 1967 dagaalkii 6 maalmood, ayadoona sanadkii 1981 baarlamaankii xilligaa jiray ay sheegteen inay buurahaasi dhulkooda ku dareen, laakiin Qaramada Midoobay isla sanadka ayay go'aan rasmi ah ka soo saartay in buuraha ay u calaamadisay dhul Suuriya leedahay oo xoog looga haysto, waxaana jira in Israel aaminsan tahay in buuraha u yihiin muhiim istiraatiijiyadeeda difaaca, sidoo kalena ay ka hesho xaddi badan oo biyaha sanadka ay isticmaasho, ayadoona qiyaasihii ugu dambeeyay lagu sheegay in 30% biyaha ay isticmaasho Israel ay ka hesho buuraleyda Golan Heights iyo harada Dabariya. Sidoo kale Israel ayaa aaminsan in buurahaasi ay ku duugan yihiin kheyraad fara badan oo ka mid yahay shidaalka. Muddo badan ayay Israel dabada ka riixaysay in Mareykanku buuraha u aqoonsado, laakiin codsiga uu u meelmari waayay. Laakiin madaxweynaha haatan xilka haya ee Donald Trump ayaa u saxiixay ugu dambeyntii, asigoo Trump ku doodayo in Iran oo Suuriya joogta ay ka soo weerari karto Israel, sidaa daraadeedna si loo sugo ammaanka Israel buuraha u aqoonsiyay dhul Israel leedahay. Sanadkii 2017 ayay ahayd markii Trump uu jabiyay xeerarkii waaweynaa una aqoonsaday magaalada Qudus caasimadda Israel. Intaas ayaan ku soo koobaya, waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka faa'iiday. Subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada kale ee xiga. Wassalaamu calaykum.